dhulkeena hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala aniga hadda qaas ahaan markaan iska hadlo 7 ilmood baa gurigeyga uga soo tegay 7 ilmood 2 ilmood baan diray tolo maxaa ku bixisaa aan iraaha shanta kale waxba ma baran karo waayo shilin uma hayo waxaan wax ku baran ma hayo abaar baan qabsatay cuntadaan ugu yar biyo ma haysano biyo kharaar haysana biyo macaan ku karsan ma haysano ilmihii waxaan wax ku baranana ma haysano waxaan ugu daran waxbarashada anagu waa qadarinayna in wax nala qabto in ilmaha wax nala baro in waxa weeye wasaaraduna gacan qabato inay iskaaya weydiiso inay abaaraha jira awgood ay waxa weeye si gaar ah noo fiiriso hanti yarida abaaraha inaana waxba meesha ku hayn waanu rabnaa wasaaradda jaaliyadaha gobolka Jariiban degmada Jariiban qaas ahaan oo ay hoos timaado magaalada Seemade oo hadda aan ka hadlayno waxaanu codsi u dhiibanaynaa in naga maqan iyo in nala joogtaba wasaarad hay'ad in jaaliyad wax aan dhaafaynaba maanta male waqti baan haya inuu iskuulka xidhmay taagantaa sanadka soo socda kan waa iska gabagabo waxaanu rabnaa inuu ama naga xidhmo ama naloo istaago boqol jir baan ahay in aad iyo aad loo tixgeliyo warka aan ku hadlayno iyo inta ka kici weyday oo soo gaari wada iskuulka fariinta aan ka wado waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar kaleba in la soo caawiyo dadka ubaxa ah ee Soomaalinimo wixii aan cod lahayn ee waxbarasho lahayn awr wey dadkaas awrka dagaalanka oo waxbarashada u baahan waxaan doonaynaa in aad iyo aad loogu dadaalo jaaliyadaha dibadda wasaaradda waxbarashada Puntland degmada iskuulkan Seemade aad buu dayiciisu u badan yahay meel hoose buu marayaa aad u hooseeya iyadoo awalba uu dad yari degana haddana abaarta saameynteeda buu meel hoose marayaa oo aad u hooseysa wuxuu istaagayaa inuu xirmo baahi darteed dad waxaa deganaa reer baadiya isugu yimid guriga ka dhistay aan waxbarana yiri tabarna aan hayn ganacsina lahayn ila dhaqaalo meel ka soo galayana uusan jirin iskuulkii baa la keenay ardadii hadeed waxay fi isaga bixiyaan male ma awoodaan inay fi iska bixiyaan xoolahana lagama gato oo waxa weeyaan meel xoolaha ganacsidood yaal ma aha waxa laga gataa ma jiraan ayoo sidaas ay tahay ilmihii waxay kaliftay dadku inuu guryahooda ku daystaan intoodii badnayd ilmihii iskuulka geysan waayeen ayoo tabar la'aan u geysay waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad haday wasaaradda waxbarashada dawladda Puntland ay tahay iyo haday tahay jaaliyad dabadeed iyo haday hay'adaha daneeya waxbarashada tahay oo kaalmeeya waxaanu ka codsanaynaa oo cod dheer iyo cod gaaban ba ku leenahay iskuulka Seemade dayiciisa inay waxa ay u tabarucaadi karaan oo kaalma ay u kaalmeeyaan baanu leenahay waa codsi wasaaradda waxbarashada jaaliyadaha dabadda gaar ahaan degmada Jariiban qolada hay'adaha waxbarashada danaysa sidaasaan ka codsanayna waxaa kale oo jira baahida markaan ka hadlo iskuulku dayd male dugsi sare male oo secondary dugsi ah male xafiis male isagoo ruuxiisu waa jajaban yahay oo dayactirkii waa weyn oo qolada iyadaan guddiga ka ahi hadda waxbaan intaan sibir iyo wax ku waxayno wuxuu waa iska jajabaan aad baan ugu dayacanahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad codsi baan in iskuulka Seemade ilgaara lagu fiirsho inta aan xusay dadka maanta beesha Seemade oo waxbarashada diyaar ku ah oo abaaru haystaanay
ummadda abaarta waa wada qabtaa laakiin waxbarashada ma aad hoos uga dhacsan waana wax la'aan waa fiidaya iska bixin karin mar haddii fiidaya wax iska bixin karinna hadda xaaladoodu waa hooseysaa intaas waxaan ku darahayaa waxaan rabnaa hay'adaha jaariyadaha Puntland degmada inay wax nagala qabtaan oo ay diyaar ugu noqdaan oo fadhiga nooga kacaan magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed Cabdille maamulaha seemade iskuulka dugsiga hoose dhexe wuxuu jiraa da'diisu waa 18 jir ilaa 18 sano buu dhisan yahay 18 kaas sano wuxuu soo maray duruufo aad u kala duwan maanta oo ugu dambeysay oo marayo marxaladii ugu adkayd oo ugu qalafsanay ayagoo abaaro haddii ilaahay ku rooyay qolooyin caawin jiray oo iyaguna gabaabsi noqday marka ardadii oo maartay iskuulaadkii fiilaan awgeed banaanka uga baxay saameynta awgeed abaaraha waxaan rabaa codsiga iyaga kan daaran baahiyaha waxbarasho oo aasaasiga oo maantay iskuulkan ardada dhigataa waxay ka kooban yihiin 385 arday baa dhigta fasaladu aad bay ciriiri noogu yihiin waxaan ku dhignaa 4 fasal 4 fasal hal waqti way inoo soo roobi weyday labada gelin baan dhignaa iskuulka galableey iyo subaxley baan ka dhignay iyadoo oo fasaladii ay ciriiri nagu noqdeen iyadoo salary macallimiintu ay ciriiri nagu noqdeen waxay nagu kaliftay inaan maaragtay aan labada gelin aan shaqayno waxaan rabnaa marka cid allaala ciddii waxbarashada danaysa inay nagala qayb qaadato maantay dadkaas abaaraad isku soo guuray magaalada family ilaa 900 ilaa 800 oo qoys baa ku nool ardadooda waad garan karnaa 385 arday baa joogta arday lagu qiyaasi karo ilaa 100 arday baa drop out ah oo banaanka ku maqan oo darbiyaasha jooga oo waxbarasho la'aan awgeed kaga haray reerkii 6 arday 7 arday joogto 2 ama 3 baa laga yaabaa inuu awood fi u helo ama 4 ama 3 inay guriga ku hadho maaragtay qarashiri awgeed arrintaas marka wasaaradda Puntland ayadana ugu mahadcelinayna waxa weeye wax allaala wixii ay maaragtay qaban karto waa in la xiriiraa waa in laga warqabtaa waxaan codsiyo baaqiyo u kala diraynaa jaaliyadaha Soomaaliyeed ee islaamka ah ee gobolka Mudug gaar ahaan degmada Jariban in ay dadkooda ehelka wixii ay u qaban karaan dhinaca waxbarashada in ay caawiyaan baaqa kale wasaaradda Puntland waxbarashada iyadana u diraynaa wixii ay iskuulaadka degmada Jariban guud ahaan ay u qabatona waa uga mahadcelinaynaa khaasatan iskuulka kan si dhow iyo si dheerba in ay uga warqabto waana inaga warqabtaa waa ay ku mahadsan yihiin si nooga warqabeen si ka fog inay nooga warqabaan sidoo kale hay'adaha daneeya waxbarashada ayaguna inay la socdaan iskuulaadka dhammaan degmada waa ka codsanaynaa khaasatan annaga baahiyaha gaarka noo ah waxa ah lambar 1 iskuulku dayr male wax kastoo la qabtaa waa burburayaan qol hadaa dhistid hadaa barandab dhistid hadaa waa burburayaan barkad hadaa dhistid waa dayr la'aan dhirtii talaalka oo la beeray xoolaa jaray caruuraa jaray waa xafid la'aan dayr la'aan weey lambarka koowaad dayr la'aan xafiis la'aan wax xafiisa oo aan cid ku qaabilo ama aan ku shirno malihin fasalada ardada inta tira la eg fasalla ay noo qaadaan malihin arday kasta oo sideedaad ka baxaana meeshaas ku burburaa waxaan lahayn secondary dugsi sare malihin ilmuhu markuu 7aad marayo waalidka waxa soo walwal baa soo food saara ilmihi meesha ula carari lahaa 7aad kuwaa nooga tago waxa yiraahdaan maanta chance u helayo ama jiriyan baan diriyaa ama kaalkacay aan diriyaa ama garow aan diriyaa oo meesha aan ku shakali lahaa ilmaha helo kuwo waxay sameeyaan sideedoodkooda markay dhameystaan ba iska haraanay waxbarashada halka uga haraanay ayadoo aan waalidkood awoodin inuu meel kale u diro oo magaalooyin kale u diro 3 meelood meel baa waxbarasho kala hesha oo loo diraa 2 meeloodna meeshaas waxbarashada kaga haraanay wasaaradda Puntland cid kasta oo danaysa hay'adaha jaaliyada gobolka Mudug khaasatan degmada Jariban dhammaan waxaan ka codsanaynaa in ay nagarab siiyaan dugsi hoose dhexe waxbarashada ka socota iyo ardada aydka ka baxda mustaqbalkooda oo hoos galay wixii ay nagala qaban karaan in ay nagala qabtaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo mahad ilaah baale jaaliyada warda la yiraahdo oo adugu 5 sano ka hor noo tabar weyday
laakiin intii ka horreysay iskuulka soo wadi jirtay ilaa 5 sano ka horna naga maqnayd waxqabad hore oo fiican bay noo qabatay oo ay ku mahadsan tahay waxa kale oo ayaguna na dhiirigeliyay intii 6 bilood ah oo ayagana aan rabnaa inaan xusno hay'adda la yiraahdo tadaamul ayaduna aad iyo aad 6 bilood bay boorka naga jiftay waxaan si gaar ah ilaah baa mahadlay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada Puntland wasaaraddu waxaan rabnaa waa iska warhaynaa wax badan oo maaragtay naga dayacan baa jira waxaan codsiga koowaad aan u gudbinaynaa waxa weeye in cid allaala oo danaysa waxbarashada in ay nagu soo qabto waa dawladdeennii waa adeegaheennii marka waxaa naga dayacan fasaladii dayrkii haddii ilaahay kuu roon yahay intaasba waa naga baabacsan yihiin si gaar iyo si gaar ahaaneedba wasiirka waxbarashada wasaaradda Puntland agaasimaha gudoomiyaha gobolka oo waxbarashada Axmed Haruuse guddoonka waxbarashada Axmed Xaaji